السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل توعنا وعسان أخيرت إلى الهانت من ملك استوى جودي كجوتان كسر وهذا كان لكن التيم تصمم فشيال بليس هذا جنا كعسة سبسكرايب شارك كم بلغنا فرص يعونا في الضوء أوري وحصل إن شاء الله. ما أنتم حاروا إن كان في يور أكس أرسل قرية كده على لبنان محاكي سعود باناري بيروت قرية وينا كده على لبنان وعلى سعودين قصاري بدن أو جيسي دقدي كتير سنين بقول كي وتدواتري شانس كده كتير سنين دقالة دمو بالبوري لبنان إلى وسوس متبيح علينا إن شاء الله وعدل عرفات قرية خجع كنول وعدل فقير سكا الله أكبرنا إنه سيدي كسر كبتة إن شاء الله ومشي ودقالة بدنيت كتير سنين دقدي أنا قرح كده عني إن شاء الله وصل في ردنا لما أنت وحنا نمونتا بيرو إن أدعينا أدعي إن شاء الله إن سي رخصة وسوق كبسطو إن شاء الله فيديو رب الله مركز فيديو بلاويا معاك داعي لبنان محاسة كدم بين إنه قرح فدعو إن شاء الله عدم لو يدنتي إن شاء الله نصعد وناسين بس كتير هالقد كتير فرد مرة على شعب وادوقة مقالة عاصمة بيروت والله إلمينيا دعددي روح ذي مقالة ديسة ليك الدخنة كيف بعدها ليك الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله هذه شيء دعدل قرح عاد وين واي قيع يقع كوب بالله شيك ورمضو كبعد الجوك آد علس أنا عذب قلت المامي إن لم يدهيد مدحيدي نوكليير إلا قد دفتي هيروشيما إيا ناغازاكي أي هالمر سكدي سووق الجيشي عاصمة دلك لبنان بيروت دل لدى دعي سبول نمو كلا قيب سنانية فقوق وهلي وضل لدى دعا وداي هانتي الآن اسفقوق اسنعيب الدون نم أيو ومدبو ويسنعيان ويسفقوق أيان هانتي الآن تس وهالك ميل كتير سنين دقدة وحوالك ميل كتير سنين وأنا كبر بورتي الله لبنان سوم تبيحي شنبوح دافي ودوين كيسة أي كسون تنيد لبنان وحانا أوديرا ميليشياد هوبيسان وكلا الدينية مذاهب كواسو يسكور فردية دقمو والبا إيو قبل كستا ودعا دالكاسي كهورين تيسن سيكاديس وقوور هيلين غير لبنان لمشاد الرجدي وقدم بيسي إيا يكونوا العيين waxay ahayd dekadii ugu weyn ee ku taalay dalkaasi ganacsi dekadii ugu weyn ee ku taalay dalka Lebanon ee caasimadda dalka Beirut sana ay u taalay kadaal maxaa nacay meeshaan way babaaday meel dagaalka socday la isku dagaalay la isku dilay ee way kaato ay dhan raf naqatay qof dhimatay iyo qof dhaawacantay iyo meel burburtay bisa ka soo horay Lebanon boqolkiiba 70 ka mid wuxuu ahaa mid ka soo gala Canada dhoofa dekadaasi laakiin daqiiqado gudahood ayay isku bedeshay ishii dhaqaale ee Lebanon barxad aad u weyn oo ay buux dhaafiyeen burburka guryaha iyo meydka dad oo galaaftay qaraxaasi aafo ka dhigtay adduunka oo idil gaaliya islaamba kuwa si argagax leh u soo eega magaalada Beirut muuqaalkeena maanta daawadayaal waxaan ku eegi doonaa dhacdadii argagaxa badneyd ee ka dhacday Beirut caasimadda dalka Lebanon وهذا عاد حنون بدن لما أنا مسلم كنا حسي ومد والبميل كسجوتو لما وكنا حرون تبيرو مالين كهور إنه ديبو جليع دون واقع عادق إيه لبنان لغة لقى شيء إيه تاريخ دي مقدقة بدن إيه وكسنتين يهي دلكن عربيد أباري لحدي قلب نمو مالين نمدي 3 هايد أيي كور هلين دادك أقدوا دكد مقالة بيروت طبقة بصدي قيبا كمد كيدادك دكداسي dabkan ayaa u muuqday dab weyn laakiin la xakameyn karo waxayna ahaayeen dadku kuwa iska ag jooga agagaarka dekada iyagoon wax cabsi qabin ka hor intaysan daqiiqado gudahood hal mar si filan isku qabsan qiiq iyo ciid hal mar si lama filana ayaa isku qabsaday qarax iyo uuro iyo carro umadana ka naxshay weheliyo dhawaq xoogan iyo dabayl xawaare sare ku socota heer dadka ag dhawaa goobta uu qaraxu ka dhacay ay sheegeen in daqiiqadihii ugu horeeyay qaraxa kadib uu ahaa maqalkoodu mid aan si gebi ahaana u joogin gabar wariye oo u shaqaysa BBC-da ayaa sheegtay in uu dhacay qaraxu iyadoo ku jirta waraysi
waxayna sheegtay in iyada oo ka fog goobta uu qaraxu ka dhacay 5 daqiiqo markii gaari lagu tagayo haddana uu ruxmay dhismihii ay deganeed awoodda qaraxu u lahaa daraadeed. qaraxan ayaa laga dareemay ilaa jasiiradda Qubrus oo 240 kiiloomitir ka fog magaalada Beirut, waxayna sheegeen dadka degan jasiiraddaasi inay moodeen markii hore in dhul gariir dhacay. arrintani ayaa fajac ku noqotay adduunka oo idil, waxayna isku beddeshay dekedii ugu weyneyd dalkaasi sida fagaare uu ka dhacay dagaal lagu hoobtay guryo burbursan, dad boqolaal ah oo daadsan wadooyinka iyo dhaawacyo rafanaya hareeraha wadooyinka ayay isku beddeshay goobtii daqiiqado ka hor uun ahayd meesha ugu dhaqdhaqaaqa badan Beirut, caasimadda dalka Lubnaan. dhacdadani daqiiqado kadib waxa goobta soo gaaray duqii degmada Beirut oo baadigoob ugu jira shaqaale dibdamis ah oo ay lahayd dowladda hoose ee magaaladaasi, kuwaasi oo nolol iyo geeri meel jaan iyo cirib ay dhigeen uu la'yahay. وبعدين اختفوا مش عم نعرف وين اني مشان هيك انا جاي افتش عليهم. mar ay weydiisay wariyihii wareysanaysay sida uu xal noqon doono ayuu ku jawaabay ooyin iyo ilin soo koobtay wax walba. dalka Lubnaan dalka lagu sheegay dhan waa madaxda la dalaadhacayay saboolnimo, aqoon darro, cunsuriyad iyo faquuq ay u dheertahay sicir barar cirka isku shareeray heer ay noqotay riyada muwaadinka Lubnaaniga ah in hantida uu haysto oo dhan uu ku beddesho jinsiyadiisa isagana boqolo dhulkiisa si uu nolol uga raadsado dalalka shisheeye. sanadkii 1975 ayay kooxo hubeysan oo aan la garanayn haybtooda dileen 2 xubnood oo ka mid ahaa xisbigii la oran jiray Al-Kataib. dhacdadani ayaa curisay caro keentay in kooxo hubeysan oo ka mid ah xisbigan ay rasaas ku furto bas ay saarnaayeen Falastiiniyiin, waxayna dishay 27 ka mid ah. dhacdadani ayaa bilow u ahayd in Lubnaan ay isku diyaariso gelidda dagaal. Lubnaan waxay isku diyaarisay dagaal suka inay 4 saac ku jirto. waa dal keliya ee rafaad jac ku nool. ilaahay asamata bixiyo dhammaan dalka reer Lubnaan. insha Allah dhammaantina u duceyn doona insha Allah anagana oo galaafan doona nolosha boqolaal kun oo ka mid ah dadkeeda. 6 Diseembar isla sanadkaasi ayuu xisbigii aan soo sheegnay ee la oran jiray Al-Kataib ahaana xisbi Kristan ah uu helay meydka 4 xubnood oo ka mid ah xisbigiisa. arrintani ayaa keentay in maleeshiyaadkii Kristanka ahaa bilaabaan howlgallo ay ku beegsanayeen qof walba oo muslim ah, waxayna ahaayeen kuwa dadka ku kala sooca kaararka dhalasho oo xilligaasi lagu xusi jiray diinta uu qofku haysto. arrintani ayaa sababtay dhimashada boqolaal ka mid ah muslimiintii Lubnaan iyo Falastiiniyiin, waxaana loogu magac daray maalintaasi Sabtidii Madoobeyd. dhiigga la daadiyey maalintaas waxaa loogu magac daray maalintaas Sabtidii Madoobeyd oo dhammaan dalka Lubnaan qulqulay dhiig because ummadii Soomaaliyeed dhammaan la beegsaday. ilaahay samata bixiyo. si daraadeed dhacdadani bilo yar uun kadib, gaar ahaan bilowga sanadkii 1976 ayay haddana maleeshiyaadkii Kristanka ahaa weerar hubeysan ku qaadeen xaafad ay deganaayeen Kurdi, Falastiiniyiin iyo Suuriyiin, badankoodu diin ahaan Islaam ahaa, waxayna goobtaasi ku dileen ku dhawaad 1500 oo qof hal maalin gudaheed. dhacdadani ayaa sabab u noqotay curashada dagaal u dhexeeya Kristankii hal maalin 1500 oo qof ay mashku baabiyeen muslimiina Islaamkii ku wada dhaqnaa magaalada Beirut, waxayna u kala jabtay magaalada Beirut 2 daamood ama dhinac. daanta bari oo ay ahaayeen dadka degan badankoodu kuwa Kristan ah iyo daanta galbeed oo iyadana dadka degan badankoodu ay ahaayeen muslimiin, waxaana kala qaybin jiray magaaladan khad ama diilin lagu magacaabi jiray diilinta cagaaran. dagaaladan ayaa isku bedelay dagaalo sokeeye oo ku baahay Lubnaan oo dhan, waxayna ahaayeen dagaalada sokeeye kuwa saameeyay dalkan Carbeed 16 sano oo xiriir ah. dagaaladan ayaa galaaftay nolosha ku dhawaad 150,000 oo qof, halka 300,000 ay ku dhaawacmeen, qaybtoodna ku waayeen xubno ka mid ah jirkooda. waxaana ilaa maanta la la'yahay meel ay jaan iyo cirib dhigeen ku dhawaad 17,000 oo qof, waxaana ka barakacay Lubnaan dagaalada sokeeye intii lagu jiray ku dhawaad 1 milyan oo qof, halka tirada guud ee Lubnaaniyiinta oo dhan ay tahay 3 milyan oo keliya, taasoo ka dhigan in 3 meelood meel ka mid ah ay ka qaxeen dalkooda. 14 bishii labaad sanadkii 2005 Lubnaan oo aan weli ka soo kaban dhaawacii dagaalada sokeeye
ayaa mar kale kusoo waabarisatay qarax xoogan oo gilgilay magaalada caasimadda ah ee Beirut. gawaadhi gaashaaman oo galbinaysay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Rafiq al-Hariri ayaa lagula eegtay qarax bartamaha magaalada Beirut. inkastoo gawaadhida uu watay ra'iisul wasaaruhu ahaayeen kuwa gaashaaman oo aanay xabadu karin, haddana waxay isku bedeleen dhammaan gawaadhidii la socotay sida daasad oo kale. goobtii uu ka dhacay qaraxuna waxay isku bedeshay god aad u weyn. muuqaal uusan rumaysan karin caqliga aadamuhu ayay isku bedeshay barxaddii Beirut. Rafiq al-Haririna waxaa loola cararay cisbitaalka isagoo oo meyd ah. dhacdadan ayaa dib u soo celisay cabsidii laga qabay inay dib u soo noqdaan dagaaladii sokeeye. Lubnaan ayaa ah maanta dal la daaladhacayay saboolnimo baaxad weyn, waxaana lagu tiriyaa dadka Lubnaan ee ku nool gudaha dalkaasi iyo dadka qaxootiga ku ah dalalka shisheeye inay isla eg yihiin, waana dalka ugu badan ee ay dadkiisu tahriibaan. dhacdadani shalay ka dhacday dalkaasi ayaa argagax kale kusii biirisay Lubnaaniyiinta, maxaa yeelay dekedan shalay burburtay waxay ahayd dekeda 70% ganacsiga Lubnaan oo ku tiirsanaa. sidoo kalena qaraxan ayaa geystay khasaare lagu qiyaasay 3 ilaa 5 bilyan oo dollar. isweydii daawade sidee dal sabool ahaa oo markii horeba loolan kula jiray nolosha uu maanta awood ugu yeelan doonaa inuu ka soo